anigoo beeraha ka shaqaynaya ayaan si lama filaan ah u arkay nin dhaawac ah. Naxariis darteed waxaan geeyey guriga si aan u daryeelo. Laakiin markii uu soo toosay wuxuu si kedis ah u qaatay maqas, wuuna igu qabtay isagoo i weydiinaya qofka aan ahay. Waxaan isku qasbay inaan isdejiyo, waxaana u sheegay inaan ahay qofkii badbaadiyey. Cabaar markuu aamusnaa ayuu maqaskii hoos u dhigay, laakiin anigu aad ayaan uga xumaaday dhaqankiisa, waxaana markiiba damcay inaan iska diro. Isla markaas waxaa TV-ga ka soo baxay war sheegaya in nin maalqabeen ah la leeyahay isagoo isku dayayay inuu ka baxsado khatar. Waan naxay anigoo xusuusanaya wejiga ninka. Anigoo weli fekeraya ayuu ninkii jeebkiisa wax ka soo bixiyey. Waxaan u maleeyay inuu jeeg soo saarayo si uu aamusnaantayda ugu iibsado, laakiin taa beddelkeeda wuxuu soo saaray $200. Wuxuuna si degan u yidhi wuxuu doonayaa inuu joogo muddo 7 ah. Waan ogolaaday, laakiin maadaama lacagtu aysan badnayn, waxaan ka codsaday inuu iga caawiyo shaqada beeraha. Waxaan u sheegay inuu quudiyo digaaga, shimbiraha iyo doofaarada. Laakiin ninkan oo horay u ahaa nin maalqabeen ah ma uusan lahayn wax fikrad ah oo ku saabsan sida loo qabto shaqadan oo kale. Markaasaan geeyey meel galleyda laga gooyo, laakiin wuxuu ku dambeeyey inuu soo saaro geedkii oo dhan. Aad baan ula yaabay, waxaana si dulqaad leh u baray sida saxda ah ee loo qabto. Labadeenuba maalintii oo dhan ayaan beeraha ka shaqaynaynay. Maalintii xigtay si lama filaan ah waxaa tuulada ka dhacay buuq. Waxaan u sheegay inuu si degdeg ah isu qariyo. Muddo yar kadib dhowr qof oo tuulada ka mid ah ayaa gurigayga soo galay. Nin dhalinyaro ah ayaa si fagaare ah u sheegay inuu doonayo inuu i guursado. Hooyadiis xitaa waxay keentay hadiyado meher, laakiin isla markiiba waan diiday guurka. Dabeecadayda adag ayaa ka caraysiisay hooyadiis, waxayna isla markiiba u yeertay odaygii tuulada iyadoo qorshaynaysa inay iga qaadato dhulkii qoyskayga. Kadib markii awowgay dhintay, la iima ogolayn inaan dhaxlo dhulka, waxaana kaliya ku haysan karayay haddii aan guursado. Iyadoo ka faa'iidaysanaysa arrintan ayay ninka dhalinyarada ah hooyadiis isku dayday inay igu cadaadiso. Anigoo arkaya dadka tuulada oo isku dayaya inay igu qasbaan guur ayaan ilmeeyey. Isla markaas ninkii qarsanaa ayaa soo baxay, qof walbana wuu naxay.